السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليك قالي وان إذن سلام ميل والباء الدنيا كجوكتان ولا شنزار عبد الكريم maanta waxaan idin soo gudbinayaa mowduuc la magac baxay waan qofka adoon dhaawicin haddii uu qof qalad ka dhaco u sheeg asaga laakiin ha u sheegin qof aan asaga ahayn maxaa yeelay qofka sixida u baahan waa qofka uu qaladka ka dhacay ee ma ahan dadka kale haddii aad ku aragtid qofka qalad aan u sheegtid waxaad ka helaysaa ajar iyo xasanaad laakiin haddii aad dadka kale u sheegtid waxay kugu noqonaysaa xasaraad iyo xan maxay tahay sababta aan ugu sheegi la'nahay qofka haddii uu ka dhaco qalad ee aan ugu sheegnaa dadka ku hareeraysan waxa aad ii soo jiitay eray ku qornaay meelaha ganacsiga meel ka mid ah eraygaasna wuxuu ahaa haddii aan ku raali gelino dadka u sheeg laakiin haddii aan ku raali gelin weyno anaga noo soo sheeg meeshaasna waxaan ka fahmaynaa haddii uu qofka suubiyo wax fiican dadka u sheeg oo waxaad ku dhahdaa hebel waa qof fiican hebel wuxuu ku dadaalaa maslaxadda dadka laakiin qofka haddii uu qalad ka dhaco si toos ah waxaad ugu timaadaa qofka oo waxaad ku dhahdaa hebel waxaad ku qaldan tahay meeshaas iyo meeshaas waxaadna u baahan tahay inaad iska saxdid waxaadna meeshaas ka helaysaa ajir iyo xasanaad sidaa waad ognahay noloshu waa maalmo yar aan ku dadaalno daacadda rabbi si aan u noqono noolaha mid kugu farxad badnaa walaal waxaa lagaa abuuray carro waxaana lagaa duugi doonaa carro waxaana lagaaga soo saari doonaa carro markii lagu soo saaro kadib waa lagu xisaabin doonaa markii lagu xisaabiyo kadib laba ma ahane wax kala soo magelaysid inaad noqotid ahlul janna am inaad noqotid ahlul naar wal ciyaadu billaah walaal waani qofka adoon dhaawicin waani qofka adoon fadeexeenin waana ku mahadsantihiin daawashada videogaygan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh